السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاشينا جوار أوفشال هذا نقول عصبتاي سودة وقلب فرن يسافك عم فرن كسودة بعدين تبو يا قلبي إذا جعل إلهي درتيسا ولا له لما أنت نحيدين لا هو ما سنتي ملبا أدوية أتكجوكتان إلهي نهيدين كحفظه إلهي نهيدين كبركيو إلهي نهيدين سيو عمري عافمات بركيسن إن شاء الله walaalahayga maanta waxaa idin wadaa qiso waayahaaniiti qisada maxaa ku dhacay waa lee weydiiyey dad badan ay weydiiyey waa mahadsantihiin walaalaha isoo weydiiyey qisooyinka aabigu dhahay qisooyin mahaysid miyaa qisooyin waa haye bis waan iska mashquulsanahay labadan beri aadaan u mashquulsanahay jaam wahay waan idinka raaligelinayaa boqolkiiba boqol waxaa jirta laba qiso oo leela soo wadaaga raadsan hadda waxaa idin sheegayaa hadduu ilaahay idmo hal qiso inkastoo ani aan jeclahay qisooyinka qofka ee ku dhacday inuu ii sharaxo taasina maysa dhicin oo qofka ee ku dhacday qof oo saaxiibo la ah oo walaal ah oo u dhow ayaa qisada ii sheegay inkastoo ani aan jeclahay qofka inaan wareysto waxay ku fiican tahay marka qofka waxa ku dhacay inaan si fiican loo wareystay ku fiican tahay taasina dib ma lahan qofkii ii sheegay wuxuu ku tiray kaano qofkii qisada iska lahay inuu ku sheegay kasoo qaad marka hadduu ilaahay idmo qisadaas idinla wadaagaa hadduu ilaahay idmo qisadeena sidoo hore kusoo noqonaysaa oo wiigii 3 mar amba 2 mar hadduu ilaahay idmo insha allah waxaa dhacda gabar oo noogu nool Afrika layga dhigaa ku nool Afrika wiil kale oo bardo waxay jeclaatay Afrika jooga wiilka kale xaasoo lahay raasoo uma sheegin inuu xaas leeyahay xaaskiisa kalena way la ogeeda inuu gabar kale oo guursanayo kulli ma aqaan xaaska kale ogolaashadeeda bal inay qasab tahay inuu isaga ku qasbay inay raali ka ahayd kulli raali way ka ahayd raasan wixii ku kalifay gabar loola guursanayo kulli waa iska taqaaniin inay dhibaatooyin badan ka imaanayso haddii qofka ahlu diin tahay amba ahlu iimaan tahay oo qof ilaahay ka cabsanayso ilaahay ku xiran ee tahay oo islaas ilaahay u baneeyay kulli ma sheegi kari oo aniga kulli gabadhan aniga qisada igama sheekaraas qofkii oo walaalin oo markaas la jooga oo garabka sii ayaa iga sheegtay marka muhiim gabadhi kaleente wiilka kale xaasoo lahaa gabar kaloo lahaa oo qabay xaamilana way u aheeda gabadhaas kaleente gabadhaan uu soo doonayay reerkeeda ka soo doonaday muddo isla jeclaayeen shoppingkeeda gabadhan way shaqaysan jirto gabar waxay aheeday suuqley ah dukaan qabto wax walba uu sii jiray wuu biilaayay gabar waa iska taqaanaa markii gacan loo yeeshto oo hadal macaan lagula hadlo iska qalbi jilcannamaan abaayadan waxaa ku dhacday wiilka sidiisaas u haayeen wuu soo doontay reerkeeda ka soo doontay adeerkeeda ka soo doontay waa la siiyay markii la siiyay 2 toddobaad markuu la joogay wuu ka tagay wuxuu noqday meeshii kale oo xaasku qabay waa Afrika dhexdeeda raasan waa meel kale inta Afrika ka baxsan oo Afrika lee meeshiis kale goobtii shaqo oo xaaska kale u joogto ku soo noqoyay markuu ku soo noqoyay oo shaqadiisii xaaskiisa kale u tagay laana xaaska kale dhalmadeeda soo dhawaay xilliga dhalmadeeda aheeday wuu ka soo tagay xaaska kale u yimiday waxna uma sheegin maxaa la xaaskaas tan gabadha cusub waxba looma sheegin waxna ma oga maxaa u bixisa durba hadaa imaatay inuu 2 bilood la joogayna balankeeday markaas uu ku dhahay may shaqo oo degdeg ah la soo baxay waa baxa ayaa qof yahay waa uu baxay ileen xaaska kale xaga joogto xaaska kale waalishay ilaahay wuxuu siiyay wiil uu siiyay wiilkii markuu ilaahay xaaska kale siiyay marka ilaahay amarkiisa gabadha adeerkeeda iyo wiilka kale waa isla shaqeeyaan wiil waxa ku dhahay mabruuq heblo waxa ku dhashtay wiil adeerkii wuu fadhiya adeerkii ma oga markii xaas kale meeshan u joogto oo uur loo lahay cunug loo dhalay gabadhiisana wuu sii Soomaaliya ilaa ma siilaan dad ogaala gabadhiisa markaas oo adeerkii wuu isku naxay markuu wiilka kale ka tago dhahay maxaa waay wiilka lagu sheega oo la sheegayo markaas uu adeero dhibkaasi waxaas jireene bal karaali noqo maxaa la gabadhina ha ii sheegna waa jecelahay ani xaaskeyga labadeeda xaas waay adeerka gabadhi oo qabay oo gabadhan kale oo hadda oo laga soo tagay oo arooska cusub aheeday gabadhiisa kale u sheegay wuxuu dhahay walaalay saas jirtee bal maxaa sameynaa islaantii warka loo sheegay gabadhii dhakab ku siisay gabadhiina ilaahayna aroos uur loo ka dhigo walacay noqoto iska xanuunsatay oo ninkii wacdaha xaas waa leeyahay waa ka qariiras xaaskeyga adigu guursanayo way ogeed ifur waa ma ku furaay wala ayada fureen wala adaa ku fureenin edab yaalo aba gabadhii waxa ku dhici karta maxay qaban kartaa waa madaxeega si ma ku siinaa inta loo dhaafaa
ninkina wuu ka dheeriyaa soo maha ilaahay markiis waxaa dhacday gabadhii adigina sidii maseerkii rafaadkii wax walba maseer tirisi waayo ayadiyaa dambe soo haraagsan ayadii waa laga qariyo qof la qiyaamaheeda ifur amba kale guri fiican ii kareeyo dahab noocaas sii guri noocaas waxaa maseer tir ku siinaya ilaahay unta malatii kaaga horeysaba maseer tir ma siina ku joog ama kale adee ku taala gabadhii kiradii wuxuu kaliibaa kiradii ebilka hore $1,000 rabaa 2,000 rabaa waa la sii jiray haddana $200 gurigii aa loo baahan yahay ma soo dhiibayo kirada soo dhiibaa hadduu kirada soo dhiibo masaariif ma soo dhiibayo masaariifka hadduu soo dhiibo kiradii ma soo dhiibayo marka gabadhi waa iska rafaad sidii rafaadka ugu jirtay moo soo noqonin way dhashay hadday dhashay ilaahay idna wiilka loo siiyey cunugii masaariifkiisa ku silciyey ku rafaadiyey ninkii wuu ku bahdilay gabadhii ilaa naaw adeersa la jooga gabadhii way bahdilan tahay ilaahay amarkiisa waxaa dhacday gabdhihii la joogeen oo gabadhan ka mid ah qisadii iga sheekeysay gabadhii sidii ku caawinay dhahday markii wiil ninkii wuu soo noqoyay cunugiisoo adiga xoogaa hebelo cunugii tacbaan waaye wuu xanuunsan yahay shaqo ma kulihi walaalo cunugii dhibkaana haysto maxaa sameeyay shaqo ma kulihi kaanoona cunuga asaga dhalinbo shaqo ma kulihi waxba ma haayo ma awoodi kari gabadhii dhan wuxuu u keenay baleen kale iyo stress kale miskiintii ku riday markii ilaahay markiisa waxaa dhacday maalin kamid uu yimiday hadduu u yimiday gabadhii maxaa laga rabay inaa ninkii qabsatay tiraaha walaalo hadda gacanteeba ku haysta ilaa ninkaa dheer idhig amba idhaq oo midna laga hayna markuu yimid maxaa laga rabay inaa tiraa amba ifur amba dad u keensato ehelkeeda ee ku dhegto meehena naagtan ayada leeba cashadeeda baxsato ayada le gurigeeda qorxso ninkii xaajiga soo dhaweeyo laano si xun ay u jeclaad way soo dhaweysay xaajigii gurigii maasha Allah tabaaraka Allah ninkeyga wuu yimid dadku way yaaban yihiin walaalay ninkaan nin makuu noqdee iska fur gabar yaraa tahay nin kiradi kuu awoodi karin nin gurigii cunugaaga caanihiisa awoodi karin walaalay ha isku bahdiline adigoo sidaa uga wacadeed adigoo sidaa uga qurxaneed xaafadii hore gabadhii waxay noqotay shaleemo laga sheekeeyo alxamuum ninkaan wuu yimid haddana 2 isbuuc kaloo la joogo wuu ka tagay haddana wuu ka tagay wuxuu u keenana ma jirto wuu ka tagay haddana gabadhiina way jeceshay oo ninkeeda xataa war maba lagu sheegi karo in dadka ay ka go'do wax walba ugu fudud inta ninkeeda ay qabsan lahayd alxamuum gabadhii marka gabadhii ka sheekaysa waxay ku tiri abaayo gabadha dhibaatadaas haysato ninkiina bar loogu reebay malaha ninkiina wuu bahdilayaa marka walaa qisada horta waa la qiirooday qiso xanuun ah waayo qof aad jeceshahay oo shalay wax walba ku wanaaji jiray oo wax walba ku sii jiray oo haddana oo marka ilaahay calaf naskii daro oo xalaashiisa aata inuu saas ku daryeelo ama ku dar xumeeyo wax laga fiican yahay waaye inkastoo nimanka wala u badan yihiin marka shukaansanaysid wixii rabaa lagu siinaa marka lagu guursado dhulka lagu bahdilaa hortaas xaraam waa gabdhaha waaniya marka qisadan waxa u soo qaatay ujeedadeedu waxay tahay marka oo aniga qisada i qiireysay ma ahan inaa gabadhaas ka sheekeyna amba wiilka bas waxaa rabaa qisada waxa u soo qaatay ee tahay inay gabaray intaa gabar tahay amba garoob ahaw intuu ninkaan banaankaa joogo maalintoo wax kuu keenay nin wax ku siiya usoo ku qabin wallahi inuu dankaaleen beri inuu dhulka kugu jiida halaas wax kuu sina waxaa wuu kusoo jiidanayaa bas beri markuu ku guursado waa kii gaajada kugu dili lahay kan aad tiraahid walaalo kaar iyo turkudha animaa ku qabo gabdhaha way ka cararaan ma jecel saraxatan laasan kaas wax ka ku dhaamo ma jirto laano kaas wuxuu ku xisaabtamaa naayo qabin wax inuu siinin beri raasan xaaskiisa ninkaas oo kale wallahi wuu ka fikiraa waana aragnay ana indheyga saaray nin hadoo marba dhib badan yahay beri gurigiisa waa lagu gaajoonaya waayo hadda show dhigaya wuu ku siinaa beri haduu gacanta ku soo geliyo kastii hadda soo adig ku siinaa ta kala dhalaalayso oo siinaya waayo kaas waaba shay macruuf waa la isku sheegay marka waxaan idin dhihi lahaa walaalahaygiyo walaalahayga igraal noqda albaabka laga soo qoray marka waxaan idin dhihi lahaa gabdhaha laga waantoobo nin oo noocaas oo kaleente wiilashana waxaa fari lahaa ayagana oo waani lahaa gabar waa idin dhashay waa idin dhalatay waa dhali doontiin amba waa dhashay gabdhaha lacagta koodor lagu siraa oo beri markay xalaashaada noqoto oo la bahdilaayo walaalahayga baliis hal iska dhaaf ragga saas ku dhaqma raggeena waa rag fiican waa rag maasha Allah ilaahay ha idin xafido ilaahay ha idin barakeeyo raasan ma fiicno waayo gabar hooyada soo xasuuso waayo hadda marka ani hadda xaasahay marka odagaaga waxma isdheys waxa soo xasuusanaysaa aabahay amba walaalkay ka soo qaada maano qaladka ku socdayna oo furo qof dumarata wax xanaaq qaylna taas waxa soo xasuusanay haddana inoo ku dhalay inoo kula dhashtay
nacam nin ahaan un dhulka ha ugu jiidin soo xasuuso aabaha ku dhalay soo xasuuso walaalkaa kula dhashtay laana ma jeclid walaalkaa naag facaan xuquuq ku tira soo maha marka idinkana sidaas oo kale noogu naxariista walaalahaygiyo gabar iska qalbi jilcanta haddee ku jeclaatana lagaama karo haddee ku nacdana lagaama karo intay ku jeceshaha walaalo bal wanaaji haddaad jecleen intuu ilaahay 100 kaa dhigay 50 dhan naga saraysid noogu naxariista ilaahay idin naxariistee marka rag iska fiican oo wallaahi 100% oo qalbi jilcan oo gabar haddii wax laga sheegay xanaaqayna wallaahi way jiraan marka wiilasheena qaar qiimo badan jiraan gabdhahana qaar waxaa jiraan xunaa jiraan midindaha gabdho fiican jiraan oo gabdhaha dhan waa wada daaraagsan gabdhaha mahamakan waa hooyadiina waa xaaskiina waa walaashiina wax walba idin tahay maanta naag la-aan nacam adduunkan basaan muu ahaadeen oo aadan baxaabo looma firtiis lagama abuurin haddii naag iyo dhin isku baahnaa leen inkastoo isku baahan yahay haddana hooyo waa idinka dhib badan tahay hooyo waa idinka naxariis badan tahay maanta naag ha yaraato amba ha weynaato waa hooyo waa tii ku dhashay waa tii kula dhalatay waa tii ku dhaxday meeqa maraad door idinka galayna waa tii guushaada ka shaqeyso maanta haddii gabdhahoo dhan ee maanta raggooda ee waxay dhahaan guulaa rabnaa wallaahi inay hataa wadanka oo ficnaanayo waayo waxa maanta oo dhinacna ka qasaayo oo dhahay maya macaarad noq waa naag waxa oo waxa sajaceynayna oo dhees cadaaladna waa naag waayo wiilkaas oo cadaalad uu cararayo hooyaa dhashay kan macaaradkaasna hooyaa dhashay waayo haddii hooyadaas oo macaaradkaas dhashay oo hooyadiisa nacam oo garab oo kasoo helo oo dhiirigelin oo inay soo waaniso wuu la imaanaya bii'ada iyo bulshadiisa marka walaalahayga waxaa idin leeyahay gabdhaha ha loo naxariisto ha loo naxo waa hooyadiin waa walaashiin waa xaaskiina marka taas canjaladan waxaa soo qaatay marka waana gelin waaye inaa idin waaniyo ma jecli marka walaalkaa sii socdaan walaasha walaana qisooyinka qaarkood walaa markaa maqlo iska qiirooda laano gabaraasaan ma jecli waa aniga wax idhiba ma jecli wax walaalkay dhibana ma jecli weliba wallahi adduunka waxa usii nacba hataa gabdhaha oo wiilasha qiyaama aanba isku kor wada hataa waa ka caroodaa waayo walaalka adisaa in la yaala ma jeceshaa maya ku leedahay adinta maxasaan u yeeli marka qofka hataa meel kale oo gurigiisa laga tusaa marka walaalo adigane walaasha la yaala ma jeclide dhibaatadahana laga dhaafo ee hooyooyinkiina nahay walaalihiina nahay markay qasideeda intaas ku eg tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba adduunyada ka joogtaan ilaahay idin xafido ilaahay idin barakeeyo sheerta iyo leegta iyo commentiga dhiirigelinta waa xageena hadduu ilaahay idmo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu